قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر diintana sida aan soo sheegnay adduunyada waa ka ducana waa lagu helaa diinta laakiin dadaal baa lagu helaa inaku laakiin waan beddelay maanta haddaan Soomaalina waxaan leenahay adduunyadu dadaal bay u baahan tahay waa ka adduunyadu u socono waana ka u dhoofayna waa kuwa dhallinyaradeenii badaha iyo saxraaga Liibiya ay ku dhamaadeen iska daba wareeg wadannada gaalada bari annagoo joogay ayaa mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac 2 bilood oo raac 40 cisho wuxuu yidhi nimayahow dhowr iyo 20 sano joogay bur Yurub Denmark man dhowr iyo 20 sano joogay shaqo la'aan busaarad wadankana dhawaan soo galay haddaan shaqo raadinayaa nimayahow culumoy shaqo ilaahay ii weydiiyay shaqo yar oo fiican buu annagii buu taalac noo raacay إلا أمضهم قري لقصة لسبوكته مركزان هذا نقبل كلام تقني لأن وحان هاللي مركز يسقون يجري ذلك مريكا كوحان كنا ولا هاي تضبيه صد صنع بل تمبرين الرع والنفط هذا سوء إصلاحي وبالآخر هذا درين كي آخر إير قال إلهي الله سبحانه جوني مركز تضبيه صد صنع ودن كجوجا بوري haddaan maanta dhinta kafan ma haysta buuli waxaa la ii sheegay buuli inuu Australia ka qaraxday Australia aanu dhoofayaayo qolaa nool ii ururnayse culumay ducada igu daray buuli hayo waa kugu darnay socodna waa ka soo noqonay dad annagoo Dubai habeen marayna airportka Dubai ayaan islaam waxaan aragnay hooyo iska warrama Soomaaliyeed baa tahay Soomaaliyeed baana ma sha Allah hageed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno wadanka noloshiisa ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay igu tiri marka ii soo duceeyay kii dalka joogay xagu u socda wuxuu ku ducaysay Ilaahu Yurub mari gali kii Yurub joogay Ilaahu maru Mareykan gali North America gali kii Mareykan joogay Australia ii gaarsi kii Australia joogayna noloshii waan garan weyno he Soomaaliya ku socon firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihin inaku baa yidhi dayax gacmeedka u horreeya la diray buu yidhi waa kaftan 2 nin baa loogu tegay wada dayaxa dul fadhida Soomaaliya hindigii baa lagu yidhi meesha maxaad ka qabanaysaa markaasuu yidhi ganacsi baan ka yar gelinayaa buu waa dhul cidla Soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa transit baan hay nabiga ku salli xagee markaa u socnaa bal sheega war meeshaan ku fiicannahay inaku waa diinta weeyaan insha Allah dhahada diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta Ilaahay noo qadaro diinta dadaalkeega insha Allah ina ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin Allah inagu anfaco saad noo soo dhaweeysan Allah inii soo dhaweeyo Allah inagu anfaco